السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كسو دوادا ماريزا علي اوفيشيال هداد كل عصوب تاي سبسكرايب نوزار هداد هورا نولي جوكتا لايك شير كومنتي انتبا مهمة يينو تاهي waxaadna kusoo dhawaataan barnaamij la magacbaxay wax ka ogow shaqsiga caanka caalamka toddobaadkiiba 3 jeer aad ka daawan doontaan waxaan kusoo qaadan doonaa shakhsiyaadka caanka ah iyo atriishooyinka haddii ay noqon lahaayeen Bollywoodka iyo Turkida intaba waan kusoo qaadan doonaa isbuucani waxaa miiska inoo saaran atriishada magaceeda la yiraahdo Ebru Shahin waxaa laga yaabaa Soomaalida inaysan inta badan aqoonin gabadhani waxa ay hogaaminaysay taxanaha Herjai oo ka dhamaaday 2021 iyada oo ku jilaysay magaca ay Soomaalida u wada yaqaanaan ee Rayaan Shaad Oglu magaceeda dhabta ah haddii aan gudagalno taariikhdeeda waxaa lagu magacaabaa Ebru Shahin naaneysteedu waa Rayaan waxa ay dhalatay 18 May 1994 da'deedu waa 27 jir waxayna ku dhalatay Istanbul Turki shaqadeedu waa actor iyo model dhalashadeedu waa Turki diinteeduna waa Muslim gabadhani haddaan gudagalno qaab dhismeedkeeda dhererkeedu waa 1.66 mitir fiid ahaana waa 5 fiid iyo 6 inji culeyskeedu waa 54 kilogram indhaheeda kalarkoodu waa brown ama qaxwi timaheeda kalarkoodu waa light brown ama qaxwi dhalaalaya dhanka waxbarashada haddaan gudagalno iskuulkeeda lama yaqaan waxa ay ka baxday jaamacadda Istanbul University waxa ayna bachelor degree ku qaadatay Sports Science kadibna waxa ay gashay iskuul jilida lagu barto dhanka familkeeda haddaan fiirino hooyadeeda lama yaqaan aabaheeda lama yaqaan walaalaheedana sidoo kale waxyaabaha ay xiiseysay ama hobbigeeda haddaan fiirino wax aqrinta ay aad u jeceshahay safarka waxbarashadan waa ay jeceshahay sawir qaadida iyo aaladda internetka oo ay aad u isticmaashay intaas ayaa gabadhaasi hobbigeeda Ebru waxa ay jilida ku soo biirtay 2016 ma aha atriisho waqti fog ku soo biirtay jilidan waxa ay ku jirtaa hadii ay uga badato muddo 5 sano ah waxa ayna jishay intaasi 5 sano ah filimo iyo taxanayaal ama musalsal sidaad u taqaanid waxa ayna ku guuleysatay abaalmarino aad u fara badan filimada ay jishay haddaan gudagalno 2016 Kana Brazil ayay door ku yeelatay 2017 Babam ayay ka qayb qaadatay jilidiisa filimkaasina magaca loogu yeereeyay waxa la yiraahdaa Neilover 2019 Shuruz Ashka ayay jishay walibana waa ay hogaamisay ama iyada ayaa atriisha ka ahayd magaca Maneksha ayayna ku jishay taxanayaasha ay jishay haddaan gudagalno 2017 Shafajini taxanaha la yiraahdaa ayay ka soo muuqatay magaca Didem ayaana loogu jiray 2017 Istanbul Gelin ayay ka qayb qaadatay magaca Burju Sinlemener ayayna ku jishay 2018 Yasak Elem musalsalka la magac baxay ayay ka qayb qaadatay magaca Hera ayaana loogu jiray 2019 ilaa iyo 2020 waxa ay jishay hogaamisayna musalsalka hawada galay ee Herjai waxayna ka ahayd hogaamiye ama atriisho waa taxanihii ugu horeeyay oo hogaamiso sidoo kalena abaalmarino fara badan ayay taxanahani ku qaadatay waxayna ku jishay magaca Rayaan Shaad Oglu 2021 waxa ay wadaa imtixaanaha la magac baxay Destana la yiraahdo waxa ayna ku jilaysaa magaca Akis dhanka kale abaalmarinadeeda haddaan gudagalno gabadhani Ebru Shahin 2019 shirkadda Bermoza Nova Master Nova 8 ayaa siisay abaalmarinta Best Female Actor gabadha ugu wanaagsan atriishnimada sanadkaasi 2019 shirkadda Lady Brand Awards ayaa siisay Best Actress of the Year aktarada ugu wanaagsan sanadkaasi hal sano gudaheeda ayay laba abaalmarinood oo ah aktarada ugu wanaagsan ku qaadatay 2020 shirkadda Golden Butterfly Awards ayaa siisay abaalmarinta Rising Star xidiga sanadkaasi isla 2020 shirkadda Golden Butterfly Awards 9 ayaa u magacawday Best Actor iyo Best TV Cable lamaanaha ugu wanaagsan iyo atriishada ugu wanaagsan abaalmarinadani oo idil gabadhani waxa ay ku qaadatay filimka Herjai su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah Ebru qamri miyay cabtaa iyo sigaar intaba lama oga ugu dambeynna Ebru Shahin maxaas baa mise waa single balse waxay xiriir la leedahay wiil lagu magacaabo Geedi Cismaan waana ciyaaryahan ciyaaraha basketballka daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa isbuucani oo ay miiska inoo saarneed atriishada la magac baxday Ebru Shahin inta aan toddobaadka xiga ku kulmi doono iyo shaqsiga xiga waxaan idinkaga tagayaa sidaas nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh